السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo qabyaalada oo cudur la qaada ah dadka tiktok ku jirana uu aad ugu dhaco oo waaba la iska qaadaa cudurkaasi sida cudurada infekshanada la isaga qaado baa cudurkaasna la isaga qaadaa. cudurka qabyaalada waa cudur xun oo u dhigma cudurada maskaxda ku dhaca kamid ah. hay-adda adduunkana waxay u baahan tahay inay u aqoonsato cudur inuu yahay. soomaalida in la yiraahdo cudur waxay qabaan cudurka qabiilka la yiraahdo qabyaalada la yiraahdo qabaan. horta waaba inuu cudurkaas loo aqoonsadaa inuu qabyaaladu ay cudur tahay. waa cudurada maskaxda ku dhaca oo qofku uu la wareero oo tiktok-gana dad badan maadaama ay ka hadlayaan qabiil 24 saac oo reehebel caynayaan oo reehebel wax ka sheegayaan xaasidnimana ay ku ay ku laaban tahay oo dadku ay intaa been ama ka sheegayaan qabiil ama caynayaan qabiil been ka sheegayaan ama qof madaxa ay u caynayaan qabiil dartii ama qof shakhsi ah ay u caynayaan qabiil dartii ama maamul goboleed ay u caynayaan qabiil dartii waxaasoo dhan ama ay la baxayaan dadku magacyo ku saabsan qabiil ay la baxayaan waxaasoo dhan waxaa weeyaan waa cudur xun oo ku dhaca dadka Soomaaliyeed aadna ugu batay hayayna 32 sano oo u dambeysay. cudurkaas muxuu qofka ku sameeyaa? cudurkaas qofku wuxuu ku sameeyaa hurdo la'aan, wuxuu ku sameeyaa walwal, wuxuu ku sameeyaa walaac, wuxuu ku sameeyaa inuu dantiisa ka tago, inuu waqti badan ku dhumiyo qabyaaladaas ka shaqaynteeda inuu ku dhumiyo. wuxuu waqti kale ku dhumiyaa wuxuu dhihi lahaa marka dambe uu tigtig soo galay wuxuu dadka isaga difaaci lahaa. marka waxa weeye jahwareer baa ku dhacaya marka dambena waxa ku dhacaysa xanuunada depressionka iyo muxuu haysto walwalka iyo walaaca iyo waali buu isu bedelaya. mid kale arkayna waxay tahay dadka Soomaali jilaaca ee muxuu haysto Soomaali baantuuga si xun u caynayaan arka qabiil ahaan ku caynaya. kuwaasina waxa weeyaan kuwaan aqli lahayn, aqli dheer aan lahayn, fikrad dheer aan lahayn, aan islaam ahayn. fiiri islaamnimadii baa tagtay. Soomaalidu muslim bay sheegtaa laakiin muslimnimadii ka tagtay. muslimku waa walaalo weeyaan. waxa weeye waxaan ka tagnay dhibaatada anaga hayso dhan waxa waaye diintaydii baanu ka tagnay. markaan diintaydii ka tagnay waxaan isu bedelnay wax kaleeto oo muxuu haystadiito aad u dhibaato badan oo qofkii dadkii noloshoodii iyo dalkii Soomaalinimadii iyo dadkiiba ay baaba'een oo